وحي داد ما تنتهي قرح ayaa waxa uu ka dhacay wadadan xiriirisa garoonka diyaaradaha iyo magaalada Jowhar si gaar ah halka loo yaqaan deegaanka Xanshooley inta la xaqiijiyay qarax waxa uu dhaawac ku soo gaaray laba askari oo ilaalo ka ahayd gaariga uu lahay gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Furdug oo ku sii jeeday garoonka diyaaradaha Maxamed Deere ee magaalada Jowhar sida wararka ay sheegayaan gaariga waxa saarnay Mahad Cumar Cabdi oo ka tirsan guddiga doorashooyinka balse goordhawto halka leeyahay Facebook waxa uu soo dhigay erayo ku sheegay inuu nabad qabo balse ay dhaawacmeen laba wiil oo ilaalo ka ahayd gaariga qariyaha saldhigga iyo xubin ka tirsan guddiga doorashooyinkana waxa ay noo xaqiijiyeen in qarax ay ku dhaawacmeen laba askari oo ilaalo ahayd xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka oo gaariga saarnaana waa uu badqaba badan qasaaraynta ka duwan oo halkaas ka dhacay waa gartay marka qaraxan lala eegtay ma qarax miinada dhulka lagu aaso mise wax lagu tuuray muxuu ahaa waa nooca miinada dhulka lagu aaso oo gaariga marka uu kormaraya haleeshay wada nooca dhulka lagu aaso miinada nooca dhulka lagu aaso waa gartay marka hadda askartii ku dhimatay qaraxaas iyo xubintan ka tirsan guddiga Mahad dhaawac ayaa soo gaaray sida wararka qaar ay sheegayaan hadda ma garoonka ay ku sugan yihiin mise Jowhar ayaa lagu soo celiyay hadii wasiido Mahad Cumar Cabdi oo ka tirsan guddiga doorashooyinka wax ka hor 29 minut Facebookgiisa ayuu ku soo qoray in uu dad qado oo ka badbaaday balse ay labada wiil dhaawacmeen labada wiil dinteen asagana uu dad qabo goordhawto ayuu ku xaqiijiyay barta Facebooka labada wiil meedkoodana waxa loo soo qaaday isbitaalka magaalada Jowhar Mahadna waa uu dad qaba sida wararku sheegayaan garoonka diyaaradaha inuu ku sugan yahay waqti xaadirkan ay xog u sheegayaan si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta